فراك صوماليا His Excellence حمزة عبد البر وزير الدولة وزارة عافماتك iyo xafiiska wasaaraha wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada aqalka sare iyo gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada baarlamaanka dhammaan mas-uuliyiinta kasoo qayb gashay gaar ahaan dadka matalaya UNFPA representative Mio Jalabi and country director of WHO Malik also country director of UN office and Dr. Mariam Qasim وزيركeenii hore haddan la taliyay UNFPA dhammaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib maanta halkan waxaan u joognaa in aan dib u furno National Blood Bank bangiga dhiigga qaranka oo 30 sano aan shaqeynin inaan dib u furno halkan u joognaa bangigeena dhiigga waxaa la furay 1976 ilaa saashikooda ayuu shaqeynayay 1986 wuxuu noqday the best blood bank in low and middle income countries blood bankiga ugu fiican low and middle income countries ayuu ahaa 1986 ayuu noqday cilmi-baarisyo ayuu samayn jiray qaybo kala duwan oo platelet unities plasma unities ayuu lahaa maanta inaan dib u soo nooleyno sharaf ayay noo tahay excellence annaga commitment sheetkii aan kula galnay wax badan ayaan fulinay waxaan hore u furnay xaruntii public health emergency operation center oo furitaankeeda aniga wakiil aan kaaga ahaa hada aad mashquul ahayd waxaa noo furtay maalin dhaweeto warehouse-kii nationalka qaranka ayaa noo furtay maanta waxaan u joognaa milestone kale oo muhiim ah inaan furno sidoo kale waxaan shaqaynayaa xaruntii keliyaha lagu dhaqaayo oo free ah ayaa meel dhowr mitir noo jirta ka shaqaynayso xaruntaas oo aan 9 sano xayirneed oo aan shaqaynin dadaalo badan iyo kulamo badan ilaa 4 kulan aan kala galnay dadka ay qusaysay sidii loo howlgelin lahaa haddana aan ku guuleysanay inay shaqayso bukaano free loogu shaqaynaya hadda ay dhex jiifaan oo lacag aan laga qaadin waxaan ku dadaalaynaa waxyaalaha nagu dhimana si degdeg ah inaan ku deliver garayno wax badan oo kale milestone kale higsanayna aan bilowno aan ballan qaadaynaa insha Allah taala ummadda Soomaaliyeedna ay ku dirsan doonaan wuxuu naga rabaa blood bankigan ay hadda nolol dhisay nolol qalabeeyay wuxuu naga rabaa inaan annaga socodsiino ka shaqaysiino tayadiisa iyo wixii aan ilaashano ayaa naga rabaa taasna insha Allah taala mas'uuliyad ummadda Soomaaliyeed saaran waaye marka aniga hadal badan ma dheeraynayo waxaan soo dhaweynayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda ayaan soo dhaweynayaa soo hadalkiisa u jeediyo ra'iisul wasaare soo dhawo